السلام عليكم كسو دوادا qodobada wararka ciyaaraha kooxda Manchester United oo xaqiijisay dhameystirka saxiixa xidiga kooxda Ajax Lisandro Martinez. Kooxda Manchester United ayaa xaqiijisay inay dhameystirtay saxiixa xidiga Lisandro Martinez kaasi oo kala soo wareegtay kooxda Ajax. Lisandro Martinez ayaa noqday saxiixii saddexaad ee Manchester United ee ka sameysay suuqa kaliibsiga ciyaartoyda xagaagan kadib markii ay shaacisay saxiixa xidigana. Manchester United ayaa Lisandro Martinez ka soo bixisay lacag gaaraysa 55 milyan kadib markii tababare Erik ten Hag uu doortay in loo keeno xidigana. Xidiga reer Argentina Lisandro Martinez ayaa qalinka ku dugay heshiis 5 sano oo ku joogi doona garoonka Old Trafford oo ku ciyaaraysa kooxda Manchester United. Manchester United ayaa saxiixa Lisandro Martinez ku garaacday kooxda Arsenal kuwaas oo doonaya saxiixa xidigana. xidiga Lisandro Martinez ayaa xidig awood u leh inuu ka ciyaaro boosas badan kuwaasi oo kala ah booska daafaca dhexe, khadka dhexe iyo waliba daafaca bidix. Manchester United ayaa ku raad joogtay in muddo in la soo wareegto xidigaasi. Koulibaly oo magacaabay labada qof ee ku qanciyay inuu ku biiro kooxda Chelsea. Xidiga cusub ee kooxda Chelsea Khalid Koulibaly ayaa shaaca ka qaaday Eduardo Mendy iyo xidiga Jorginho inay ku qanciyeen ku biirista kooxda Chelsea. xidiga 31 sano jirka ayaa Chelsea kaga soo biiray dhanka kooxda Napoli kadib markii kooxda Napoli uu ku sugnaa muddo 8 sano. kooxda Napoli ayaa xidigan doonaysay inay heshiis cusub ka saxiixdo inkastoo markii dambe xidig uu diiday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdaasi. Khalid Koulibaly ayaa sheegay xidigaha Mendy iyo Jorginho inay hayaan labada xidig ee ku qanciyay inuu ku biiro kooxda Chelsea. Khalid Koulibaly iyo Jorginho kula ciyaaray Napoli halka Eduardo Mendy uu kula ciyaaray xulka qaranka Senegal. Chelsea ayaa ku dhawaaqday heshiiska xidigan inkastoo kooxda Chelsea ay suuqa ka raadinayso xidig cusub oo dhanka daafaca dhexe. Waxaa la xiriirinayaa xidiga kooxda Paris Saint-Germain ee Kimpembe. Mikel Arteta oo ka warbixiyay mustaqbalka Bukayo Saka. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in arinta Bukayo Saka ee heshiis kordhinta kooxda Arsenal ay meel fiican u marayso. Heshiiska xidiga 20 sano jirka Arsenal ayaa dhici doona dhamaadka xagaaga 2024 waxaa si weyn loola xiriirinayaa mustaqbalka xidigan inuu isaga tagi doono kooxda Arsenal. Kooxaha Manchester City iyo Liverpool ayaa la rumaysan yahay in ay xiiso u qabaan saxiixa xidigan reer England ee 130 kulan u saftay kooxda Arsenal. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in kooxdiisa ay dadaal badan ay ku bixi doonto sidii heshiis cusub ay uga saxiix laayeen xidiga reer England kaasi oo qaab ciyaareed fiican uu ku soo bandhigay kooxda Arsenal xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxaana uu muhiim u yahay xidigaha kooxda Arsenal. Mikel Arteta ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in Bukayo Saka xil ciyaareedka dambe uu yahay xidiga uu sida weyn ugu tiirsanaan doono kooxda Arsenal. Manchester United oo isha ku haysa weeraryahan ka ciyaara Premier League. Kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqayso saxiixa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Brentford Ivan Toney si ay ugu bedesho Cristiano Ronaldo haddii uu ka tago kooxda Manchester United ee xagaagana. xidiga 26 sano jirka ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah xil ciyaareedkii dhamaaday isagoo dhaliyay 14 gool 37 kulan oo u saftay kooxdiisa. Ivan Toney ayaa dhaliyay 12 gool iyadoo 5 kale caawin ka noqday Premier League isagoo kooxdiisa ka caawiyay inay sii joogto horyaalka English Premier League. Sida laga soo xigtay wargeyska The Sun, Manchester United ayaa taageero u ah xidigan si ay u keenaan garoonka Old Trafford ee ku ciyaarto kooxda Manchester United. Wararka ayaa intaas waxay ku dareen in Manchester United tartan adag ay kala kulmi doonto saxiixa xidigan kooxaha kale ah Newcastle, West Ham United iyo Leeds United. guud ahaan waa naga intaa qodobada wararka ciyaaraha.